kulanti wacan wanaagsan daawadayaal idin ahaantiinba meel kastoo aad joogtaanba halkani waa telefishinka iyo raadiyaha Puntland studiyihiisa magaalada London waxaad ku soo dhawaataan daawadayaal toddobaad kale iyo barnaamijkeeni tala caafimaad oo telefishinka iyo raadiyaha Puntland xaruntiisa magaalada London galbeedkeeda aanu ku leenahay aanu idinkaga soo gudbino barnaamijkeena tala caafimaad ee toddobaadkan daawadayaal waxaaynu ku eegaynaa dawooyinka aan asalka ahayn ee tayadoodu ay hooseyso dhibaatooyinka ay leeyihiin ayna u keeni karaan bukaanka isticmaala sida lagu aqoonsan karayo markooda horeba inta aanu bukaanku isticmaalin waxa arintaas nooga waramaya oo telefishinka Puntland studiyiisa nugula sugan oo martuka barnaamijka tala caafimaad ee toddobaadkan Dr. Abshir Abdullah Mansour oo ah khabiir ku takhasusay dhinaca daweynta cudurrada guud iyo qalliinka دكتور منصور سدو عادي ayaan u dhawahay waa mahadsan tahay guleed aad kaaga mahad celinayna waqtigaad barnaamijkan soo siisay dabcan sidaynu ku sheegnay barnaamijkan wuxuu ku saabsan yahay waa maxay marka macnaha horta guudana dib u noqonne oo dawo maxaa dawo loogu yeeraa okay dawo waxa la dhahaa waa waxyaabo ama chemical ah oo qofka bini aadanka la siiyo oo ka hortaga ama daweeya cudur oo qofka markaas haya waxa loo isticmaali karaa marka ka hortag ama daweyn labadaba waa isticmaali kartaa waa waxyaabo kiimika ah oo laga soo saaro ha noqoto dhirta ha noqoto meelo badan laga keenay oo loogu talagalay qofka bini aadanka ama caafimaadka guud ee dadka bini aadanka in lagu hormariyo oo looga hortago cudurrada wahaga maadaama dawadiisa u sharaxday arrin kala markay imanaysa qaadashada marka dawooyinka dhowrka ah ee kala duwan iyagu marka jirka qofka bini aadanka ah sidee buu u aqbalaa ama uu uga jawaabaa aad su'aal muhiim ah waaye waxa jirta dad badan oo la siiyo dawooyin aad u kala duwan inay hal mar isku wada qaataan dawooyinkaas waxay sameynayaan interaction way isdhexgalayaan oo waxay sameynayaan qaar kamid ah ay burinayaan waxa ay qabanayeen awood ay lahaayeen qaarna waxay sameynayaan jirka ay dhibaato u keeni karaan oo organada xubinada jirka kamid ah ay shaqada xataa beelin karaan mid kale marka qof aad dawooyin isugu daraysid asiinaysid waxaad sameynaysaa dhaqaalihiisa economicadiisa qarashkiisa ayaad wax u dhimaysaa marka waxay aad dhibaato ugu tahay oo marka dawooyinka la isku falgalayo hadii dawooyin aan islahayn la siiyo qofka dhibaato fara badan ayaa soo gaari karta hadii aan laga maarmi karin oo ay noqoto khasab in qofkaasi dawooyin kala duwan uu qaato oo cudurro kala duwan ay hayaan oo mid walba goonidiisa loo beegsanayo maxaa la sameyn karaa kala marka maadaama dawooyinkii aad sheegtay inay dhibaatadaas sababi karaan okay tan waa su'aal aad u wanaagsan waxa jirta marka aad siinaysid dawooyin oo kala duwan waa in marka ugu horeyso iska ilaalisaa dawooyinka qaar kamid ah oo dhibaato keeni kara oo inaadan isku darin aad u kala fogeysid ama aad very careful aad taxadar ka ahaatid iyo tan kale inaad dhiig mar walba la qaado oo la ilaaliyo beerka ha noqoto kelida ha noqoto si saameyntooda dhigaha ha noqoto qaar kamid ah waxyaabaha ay keeni lahaayeen oo loo ilaaliyo for example hadii laba daawo oo ah tusaale hadan kuugu soo qaato hadii la isku daro oo dhibaato u keeni karto waxa kamid ah daawo xanuunka baabi'iso iyo tan hurdo ah hadii qofka la isku daro waxa dhici karta in uu neefta ku xiranto in uu u dhinto xataa ay gaarsiin kartaa marka kuwaas oo kale ina kala ilaalisid tan marka dawooyinka aad si fiican aad macnaa u guda gashid u ogaatid habka interactionka ay u sameynayaan dawooyin qaar kamid ah waxaa jira dhiigga loogu talagalay dhiigga xinjirowida khafiif ka dhigaya hadii aad dawo kale antibiotic oo kale hada warfarin oo kale hadii lagu daro erythromycin waxa dhacaysa dhiigga ay aad khafiif u noqonaya marka qofkii wuxuu sahal u noqonayaa in dhiig ka imaado ama sanka ama saxarada soo raaco oo inuu dhiig bax
dhaqsi ah ku dhaco Maadaama dhiigga marka khafiif noqday. uu dhiigga khafiif noqonayo marka dhakhtarka waa inuu iska ilaaliyaa combinationkan oo daawooyinka aad siinaysid In la isku qofka darayo, natiijada ka isku dhalan karaysa. natiijada ka dhalayso tan kalena waa inuu baaris mar walba uu ku ilaaliyaa in maxaan ku dhahaa sida ay yihiin xubnaha dhiigga ayaad ka ogaanaysaa haddii wax dhaawac ay jiraan waa hagaag dadka waayeelka ah waxaynu ognahay dabcan inay ka jilicsan yihiin dadka da-da dhexe ama ka yar dawooyinka marka kala duwani iyaga si khaas ah saameyn noocee ah bay iyaga ku yeelatahay ku keentaa dadka da-da oo waayeelka aad iyo aad ayay muhiim u tahay sababtoo ah qofka waayeelka ah sida aad la taqotid daawooyinka qaar ka mid a way ka xoog badnaan karaan ama dhibaato fara badan ayay u keeni karaan haddii daawooyin fara badan qofka weyn laisugu daro waxaa aad u badanayso ama dhibaatooyin oo side effect ah oo si jilicsan uu ku helaya mid ka duwan qofka dhalinyarada ah ayuu u helaya waxaad soo dadejinaysaa uu ka jilicsan yahay waxaad soo dadejinaysaa complicationka ama gaboobida laftirkeeda soo dejinaysaa ama dhaqsi in uu cimri gaabid u keentid cimri degdega u keentid ayaa dhici karto markaa isugu dartid daawooyin oo intaas ah sida daange oo kale loo cuma markaa isugu dartid adigoon waxba aadan fiirin dhibaatada aad u fara badan tahay taas keliya ma aha qofka weyn keliya ma aha caruurta laftirkooda waa inaad careful ka ahaatid iyo haweenka uurka leh na daawo looma dhaweyn karo ugu yaro especially marka 3 bilood ugu horeyso ee haweenka oo uurka leeyihiin daawooyinka aad ayaa looga ilaaliyaa xataa kiniiniga xanuun baabiya xataa laga ilaaliyaa maadaama uu samaysmayo maxaan ku dhahaa cunugii uu samaysmayo ugu yaraan uu falgal la samayn karo uu bedelna u keeni karo waa hagaag maxaa loola jeedaa marka aynu barnaamijkeena dhumucdii soo tagnay dawada aan asalka ahayn dabcan alaga dadkan isweydiinayaan daawa la sheegay laakiin maxay tahay daawada aan asalka ahayn daawada aan asalka ahayn waxaa laga wadaa daawo aan lahayn qiimihii ama tayadii daawadii runta ahayd ee laga soo saaray warshada aan lahayn ama waxaa ku jiro daawo khatar ah ama substance waxyaaba oo khatar ah aan daawadiiba ahayn ayay ka samaysan tahay labadaas nooc fake ayay ku magacaabaan fake oo maxaan ku dhahaa drug ama medical maxaan ku dhahaa daawada aan asalka ahayn cadadii ayaa ku jira tusaale haddaan kuu soo qaato waxaa la sameeyaa kaniiniga aspirinka ah ama maxaan ku dhahaa paracetamolka aad taqaanid 500 milligramka lagu dhahayo hal xaba kaniiniya la qaataa waxaa la tagaa wadanka hindiya ama wadamo kale la tagaa halkaas 500ka ah ayaa waxaa lagaaga dhigayaa wax badan ugu yaraan midkiiba ku jirta 1 gram oo kale meesha haddana waxaa lagu qorayaa 500 milligram lagu qorayaa marka hadhow markay soo noqoto daawadii aad dadka siisid waxba uma qabanayso marka uu qaato dhowr xabo ay halkii xabo ee asalka ahaa u dhinto u dhiganto ama waxaba ku jirto daawo aan daawadiiba ahayn oo dhib gaarsiin karto oo dhibaato fara badanna qofkii u keeni karto maxaa marka laga yaabaa inay u yeelayaan dadka falalkaas oo kale ku kacaya badanaa waxa loo yeelayo waxa waaye in qofka uu helo maxaan ku dhahaa si fudud uu ku helo lacag ganacsi oo ku taajiro ama maxaan ku dhahaa ay waxyaabahaas jidadkaas lablaabka oo qofku u maraya waa hagaag sidee marka lagu garan karaa in dawadu aanay asal ahayn marka ugu horeysa sidee lagu ogaan karaa yeyse tahay inuu ogaado dawadaan inaysan asal ahayn horta marka ugu horeysa daawada siyaabo badana lagu ogaadaa WHO-ga ilaa farmasi baad tagaysaa paracetamol baad soo gadatay ama aspirin sax iyagii baana yaala sideed marka ku ogaanaysaa waxaan kasoo bilaabaynaa kor WHO oo ah caafimaadka adduunka ah ayaa koog u xil saaran oo aad meelo fara badan gacan uga geysto oo maxaan ku dhahaa inay ilaaliyaan daawooyinka iyo tayadooda waxyaabahaas ay qaabilsan yihiin waxaa kaloo jiro kuwo kaloo ayagana CHRA lagu magacaabo chemical assessment sameeyo shirka oo company oo wadan walba oo adduunyada ay joogaan waa group company loogu talagalay inay baaraan asalka iyo siday u samaysan tahay daawada tayadeeda waxaas shaqo ku leh marka
qofka oo u tagayso dowladaha ma ka madax banaan mise dowladaha hoose dowladda ayay hoos imaadaan dowlad kasta ayadaa leh waxay leeyihiin qolo u qaabilsan daawadaas tayadeeda waxay u qaabilsan marka dowladda iyo wasaaradda caafimaadka ayay hoos imaanayaan kuwaas ayaa daawooyinka aad u kontroolaya marka mashaakilka meesha uu ka jiro waxa waaye Soomaaliya oo kale way adag tahay ma lahayo groupkaas lama hayo oo waxaas kontroolaya marka daawo aan tayo lahayn si fudud ayay ku soo gali kartaa dhakhtar ka mid ah dhaqaatiirta oo Soomaaliya joogto wuxuu sheegay in qaraxyada dadka ku dhinta ay ka badan yihiin dadka ay ka yar yihiin macnaha waxaa badan dadka ku dhinta daawooyinka aan tayada lahayn ama qaladka ah ama daawooyinka dhacay la siiya ayaa ka tiro badan kuwa qaraxa ku dhinta mushkilad weyn waaga xaddiga heerkulka ugu sarreeya ee ay dawadu ku badqabi karto waa imisa waa daawooyinka way kala duwan yihiin guleedo daawooyinka normally caadi ahaan sida kaniiniyaasha iyo waxyaabaha qaarkood waxaa lagu hayn karaa 15 ilaa 25 degree inta u dhaxayso farmasiga badanaa qaboojiye xoogaa ayay leeyihiin temperaturekood wuu yar yahay daawadii marka conservative si fiican ayay u taalaysaa qaar ka mid ah daawooyinka shurubayaal suppositor waxay u baahan yihiin temperature hooseeya oo ilaa laga geeyo fridge ama talaajad la dhex geliyo si loogu ilaaliyo inaysan isbedel uusan ku dhicin waaga marka waa muhiim haddii aysan suurtagal ahayn ama ay adkaato markaynu wadanka gudihiisa ka hadlayno in farmasiyaal badan aysan adeega qaboojiyaha ama aysan lahayn ama goobaha ku yaalaan korontada la heli karo oo loo adeegsan karay ay xadidan tahay heerkulkee ugu sareeya dabcan heerkulka wadankeena ugu sareeya marka qaar buu sara maraa ilaa iyo 30 gaar ama ka sara maraa heerkulkee ugu badan oo lagu hayn karo ilaa waxaan dhahnay 15 ilaa 25 ayaa ugu wanaagsan in lagu hayo marka waxa wanaagsan meesha aad ka fukaysid localka laftirkiisa area way ku xirnaanaysaa iyo in xataa dadka farmasiga furanaya in ay ku talagalaan ku xisaabtamaan qorshaha ugu jiraan daawooyinkaas waxaas u baahan yihiin ileen dadka wax halis ah inaad siisid si tayadii daawada ay u ilaaliyaan waxay in ku talagalaan ayaa wanaagsan oo si diyaarsadaan intaysan daawooyinka keenin meesha aysan furin kaasna ay qorshahooda ku darsadaan ayaa ila wanaagsan wahagaag waa maxay marka khatarta ka dhalan karta dawooyinka tayadoodu hooseyso ee ay dadku isticmaalaan dabcan waxa soo sheegtay in ay jiraan meel lagu soo sameeyo dad fursado ganacsiyo ka dhaxdeeya dawooyinka keenaya inay adag tahay wadankeennii oo kale in la ogaado dawada tayadeedii oo aysan hay'adihii loogu talagalay san u diyaarsanayn dabcan dad baa qaadanaya dawadii marka waa maxay marka khatarta ka dhalan karta dawooyinka tayadoodu hooseyso ee ay dadkii marka isticmaalayaan waa tan hadda aan dhahaynay dhakhtar oo Soomaali joog inuu sheegay dadka ku dhimanaya inay ka badan yihiin dadka qaraxyada iyo waxyaabaha qaarkood u dhinta ama dagaalada ka dhinta marka waxay keenayaan daawooyinkan side effect ama daawadan waa daawo qaldan oo maxaan ku dhahaa ama waa daawo tayadii ku jirta yar oo waxyaabo kale oo ka duwan ay ku jiraan markaas hadda waxay keeni karaan dhibaatooyin aad u fara badan ha noqoto kelida ha noqoto beerka ha noqoto maskaxda qaar ayaa dementia xataa keenaya iloosho xusuusti ka dhuma ay keeni karaan marka meelo fara badan ayay taabanayaan oo maxaan ku dhahaa qofka bini aadanka sababtaas ayaa waxa u imaanaysaa in dhimashadu soo degdegto oo aad dadkii aad dilaysaa wahagaag maadaama marka wadamada soo koraya oo wadankeennana uu ku jiro ay ku badan tahay ka ganacsiga dawooyinka heerkoodii isticmaalka dhaafay ama tayo ahaan liita sidee baa wax looga qaban karaa ama looga hortagi karaa baad u malaynaysaa arrintaas okay su'aal aad muhiim u ah waaye waxaan dhihi lahaa laba habba waa aad muhiim u ahay in marka ugu horeyso dowladda ama dowladaha in ay dowladda xooga saarto oo la sameeyo la abuuro dadka baara daawooyinka wadankan saa la taqaanid ama wadamada Yurub ama wadamada America daawada markay soo baxdo ilaa ay ka gaarto gacanta qofka qaadanaya way kontrolan tahay oo wal ogyahay waxa ay ka samaysan tahay oo dada jira baaraya waxa loo sameeyaa barcode
baakada la yaqaanaa, barcode-ka la yaqaanaa, waxyaabaha lagu ogaan karo xataa inay daawooyinka magacii ay ku dhejiyeen mararka qaarkood spellinga qalad ah, labelki waxyaabahaasa qalad ahno. marka qaybta koowaad waa in horta dowladda ay iska saartaa xil. tan labaadna waa in ay dhakhaatiirta laftirkooda oo daawooyinka qorayo waa in ay ka taxadiraan dadka ay u qorayaan, daawada ay qorayaan, si ay u badbaadiyaan, aysan ummadda aysan dhaawac u gaarsiin ama aysan u halaagin, inay iska ilaaliyaan. marka waxaa hadda samaysmaya dhakhaatiir oo group ah oo kala duwan oo daawooyin ka dhoofinaya wadamada la yaqaano, shirkado la yaqaano oo u dhoofinaya wadankii, waxooda dhanna sharciyeysan yihiin ayaa bilaabanaya. kuwaasna waxay ka qayb qaadan karaan, gacan ayay siin karaan inay ka qayb qaataan in daawooyin fiican ay gaaraan wadankii. dabcan duruufta dhaqaale ama dadka wadankeeni ku nool siday u heli karaan inay awoodaan dawo tayadeedu ay sarreyso oo laga yaabo qiimo ahaan inay hal mar ka badan tahay qiimaha dawadii hore dalka ka helayeen, haddii arintaasi ay dhacdo dadkeena ay dawadii u baahan yihiin, maxaa la sameynaya? maxaa la gudboon dadkan aad carabka ku dhufatay dawooyinka qaadayo kale, shirkadahaasoo kale dadkii ma ku siinayaan qiime macquul ah oo ay awoodi karayaan kaga marmayaan dawooyinkan tayada lahayn? waxaa aada ilo wanaagsan oo bini-aadanimo ay ku jiri lahayd haddii ay ayaga dadka ka beec mushtara daawooyin oo fiican in ay oo tayo leh inay qaadaan, oo haddii way ku darsan karaan waxay rabaan, laakiin inay dadka u naxariistaan oo ay qiimo yar oo jaban ay ka siiyaan, ayna ka qayb qaataan xagga bini-aadanimada, insaaniyadda, islaamnimada, bini-aadanimo waxyaaba badan inay fiiriyaan oo aysan fiirin kaliya ganacsigooda iyo inay wax helaan oo dadkiina halaagaan, inay ka fiirsadaan ayaa u ronaan lahayd. tan kalena dhakhtarka laftirkiisa waxaa wanaagsanaan lahayd inay dhakhaatiirta laftirkooda ka qayb qaataan oo ay usoo jeestaan, usoo buraarugaan in daawo tayo leh wadankii la keeno oo maxaan ku dhahaa ay ogaadaan ayaa ila wanaagsanaan lahayd. tan ugu muhiimsan waxa waaye organizationkaas ama companygaas oo wadamada kasta ka jira oo controlaya daawooyinka in la abuuro, kuwaasna waa muhiim si ay arintaas ay weyn uga qaataan. dhakhaatiirtaynu weli ku jirnaaye mas-uuliyadoodana dabcan waad sheegtay, laakiin inta badan bukaanku wuxuu u tagaa dhakhtarka. badanaana waxaa dhacda dawooyinka la qaadanayo ama bukaanka loo qorayo inta badan inay yaalaan farmasiga dhakhtarka daawada uu qoraya. marka mas-uuliyad intee lag marka kaalin intee lag bay marka ka qaadan karaan dhakhaatiirtu sidii loo yaran lahaa ama loo joojin lahaa daawooyinka ay tayadoodu hooseyso inay bukaankoodu ay isticmaalaan? iyaga maxay tahay mas-uuliyadooda? iyada mas-uuliyadooda waxay tahay in ay ilaaliyaan bukaankooda daawo qalad ah inay siiyaan, ama daawo tayadeeda yar tahay ama daawo laga soo sameeya wax qalad ah in ay siiyaan ayay mas-uul ay ka yihiin. waa in raadiyaan. saas darteed ayaan u dhahayba hadalka ayaga laftirkooda inay hurdada ka kacaan, ay raadiyaan dadkan ka bec mushtara daawada keenaya, inaysan ku raacin inay daawada iska keenaan, inay ka kontroolaan, ayaga baaraan, ay dabagalaan, markaas kadib ay dadkii ay u qoraan daawo wanaagsan, dhakhaatiirta ay soo gataan daawada leh tayada ay soo gataan. dabcan markii dhib dhaco cid baa mas-uuliyadda qaata. wadamadan aynu ku noolnahay dhakhaatiirtu haddii ay dawo khaldan qoraan ama si khalada ay dawo bukaan u siiyaan wax ku noqdo, waxaa jira sharci lala tiigsado, waxaa jira cid dabagasha oo qofkaas dhibanahaana xaqiisii usoo dhicisa. dhakhaatiirta Soomaaliyeed ayaa la xisaabtamaya dhibka ay geystaan. dhibka ugu weyn qof la xisaabtamaya ma laha. dhibaatada haddana haysato waxa waa qof la xisaabtamaya ma laha. ma jiraan xubnihii ama organizationkii wixii controli lahaa ma jiro, lama xisaabtami karo. sidaa taqaanid UK waxaa jiro dhakhtarka sanadkiiba daawooyinka waxyaabihii dhaca, waxyaabihii dhibaato keena waa laga saaraa, xaqorina la yiraahdaa. waxaa jira BNF wax la dhaho oo buugaas ayay raacaan, wixii ka baxa way la socdaan. waxaa fiicnaan lahayd in ayagana ay la socdaan hadda maadaama adduunka networkii uu fiicnaaday, internet ahaanay ugula xirmi karaan. halkan waxaad ka furan kartaa Soomaaliya, waxyaabaha inta ka socda oo dhan ayaa ka furan kartaa. kaas aad ayay muhiim u ahaan lahayd in ay sameeyaan dhakhaatiirta. waxaa laga yaabaa halka ugu dambeysa inayna daawanayaan dadweyne ay waxyeelo ka soo gaartay
isticmaalka dawooyinkaas aynu kasoo sheekeynaynay oo nooc walba isugu jira maxaa tala caafimaad oo aad dadkaa siinaysaa iyaga tan waxaan siin lahaa waxaa in horta marka ugu horeysa intii ay awoodaan inay iska ilaaliyaan dawooyinkan maxaan ku dhahaa oo dhibaatada keenayso shacbiga aaday u adag tahay sidai isaga ilaalin lahaan waa garanaya laakiin intay awood leeyihiin ayay laftirkooda inay iska ilaaliyaan inay daawo tayo leh markii farmasiga koowaad kasoo gataan ay arkaan inaan lagu raysanaynin inay marka kale ay ka taxadaraan ayaa aada u wanaagsan waxaa jira meelo fara badan hadda inta oo kale haddii daawo qalad oo qof la siiyo ama wax la siiyo si looga hortago center la geeyo oo sunta iyo waxyaabaha ka saaro kaasna way u baahan tahay maanta Soomaaliya in loo sameeyo meel walba oo ka mid ah wadanka dhinac kasta ay joogaan in haddii wax qalad ay dhacaan oo laga maxaan ku dhahaa laga saaro suntaas oo laga maxaan ku dhahaa laga dhaqo qofkii oo dhibaatada soo gaartay because xubin ayaa gaarayso ama kaliya beelaya ama beerkii wax noqonaya ama maskaxdii wax gaaraya adii dhibaatooyin aad u fara badan ayaa imaan kara marka xarumo inay jiraan oo dadka lagu caawiyo oo lagu kontrolo inuu qofkan sumooway toxicology waba topic ama subject oo ay leeyihiin wadamadan ay leeyihiin waaye iyo oo loogu talagalay waaye marka qofkana mas'uuliyad way saaran tahay inuu iska ilaaliyo tan kalena dhaqaatiirtana inay caawiyaan oo daawooyin wanaagsan ay soo dejiyaan ay keenaan ay dabagalaan dadka ganacsiga sameynaya oo aanay garanaynin waxa ay tahay daawooyinkan oo aanay asalka ahayn oo barcode-kooda waxooda kulli la garanayo hadda waxaa jira oo finally UK aad helaysaa daawo haddii lagu keeno shirkad ku keento number ku qoran telephone aad diraysaa message dib kugu soo dhacay inay run tahay in kale number gooniya haddana message u diraysaa ha marka waxaa la sii kordhiyey ilaalada kalsoonidii daawadii qofkii kuu keenay haddii aad xoogaa ka shakisid numberkii barcode wax walba uu sax ku yahay still waxa lagu sii siiyay number aa wacaysid oo kusii confirmareynaya daawadan inay ka timid warshad hebel ku qoran intay la sheegay inay ka timid meeshaasna dowladda controleyso daawadaas meesha ay ka soo baxday aad baa umahadsan aad iyo aad adigaa mudan guleed Dr. Abshir Cabdalla Mansuur oo ku takhasusay cudurrada guud iyo waliba qalliinka ayuu kaasina ahaa wuxuuna noogu marti ahaa barnaamijkeena tala caafimaad ee toddobaadkan oo aynu kaga warramaynay daawooyinka aan asalka ahayn ama tayadoodu ay hooseyso dhibaatooyinka ay u geysan karaan caafimaadka qofka bini'aadamka intayna toddobaad kale barnaamijkeena tala caafimaad dib ugu kulmi doono waa bahda Puntland TV UK isku duuban oo idin leh waad ku mahadsantihiin daawashadiina